بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka waxa caaw ku wada joognaa isugu nimid jaaliyadii Jubbaland ee dalkan Finland iyo xubnaheedii qaybo kamid ah xubnaheedii ujeedada aan isugu nimid ee caaw halkan isugu nimid barnaamijkan isugu nimid waxay tahay muhiimada koowaad inaynu muujino taageerada lixaad kale ee aanu hayno shirka midnimo 2 ee ka socda caasimada gobolka Gado Garbaharey shirkaas oo ku wajahan taabagelinta iyo midnimada iyo isu soo jiidka guud ahaan shacabka ku dhaqan Jubbooyinka ama gobolada la isku yiraahdo Jubbaland. shirkaas waxaan aragnaa inuu leeyahay muhiimad aad u ballaaran dadka Soomaaliyeed ee Jubbooyinka degan ugu fadhiya maslaxad mug weyn leh oo aayahooda iyo maslaxadooda iyo mustaqbalkooda iyo future-kooda ay ugu wada tashanayaan baan u aragnaa waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonto wax bulshada Soomaaliyeed dan u ah khaasatan bulshada ku dhaqan gobolada Jubba ama Jubbaland anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland dalal cilmi Cismaan iyo xubnaha jaaliyadda oo iyaguna halkan caawa qaarkood ugu la sugan yihiin waxaan halkan uga soo gudbinaynaa taageero mug leh guud ahaan shirkaas iyo ujeedadiisa oo nu aragno inuu yahay mid aad u muhiim ah anfac leh maamul hirgala oo goboladaas ay leeyihiin oo xaq oo cadaalad oo dadku u siman yahayna aan rajaynayno inuu ka soo bixi doono waxaan kaloon aad u bogaadinaynaa shirkii ka horeeyay ee midnimo 1 isagu laftirkiisa galiyay lana farax galiyay hiddiilada maanta muuqatana dhalay waxaan rajaynaynaa rajadaas inay sii ballaarato oo uu noqdo shir waxtar u leh guud ahaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Jubbooyinka ku dhaqan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir colaadda goboladaas raagsatay muddada 3 sano ee 5 sano jirtay inuu noqdo shir soo afjara inuu noqdo shir ummadda mideeya waayo midnimo waa nolol weey midnimo waa maslaxad weey midnimo waa naruuro weey midnimo waa cilmi weey midnimo waa horumar sida daraaddeed magaca uu wato ayaanu rajaynaynaa inuu shirkaas ku salaysnaan doono noqon doono midnimo waxaan kaloo doonayaa fursaddan inaan uga faa'iideysto fariin aan ugu diro anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ee dalkan Finland dalal cilmi Cismaan bulshada Jubbooyinka ka soo jeeda ee dalkan Finland khaasatan degan Helsinki iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa jaaliyaddan inay tahay jaaliyad madax bannaan una taagan danaha iyo horumarka deegaanada Jubbaland ama gobolada Jubba waxaan u taaganahay maslaxadda wadajirka midnimada iyo wax wada qaybsiga ummadda Soomaaliyeed ee Jubbooyinka sida daraaddeed waxaan ku soo dhaweynaynaa una furan tahay qof kasta oo ka soo jeeda deegaanka Jubbooyinka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan in uu jaaliyaddan ku soo dhawaado oo jaaliyadiisii oo isagu leeyahay aynu ka wada tashano sidii goboladaas ummadda joogta ee Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen hoggaan daacada maamul daacada ay u wada leeyihiin xuquuqdoodu siman tahay wada leeyihiin ku wada ganacsan Soomaalinimo iyo qarannimo Soomaaliyeed ay ka dhex muuqato ayaanu idinku baaqaynaa in aad nagala qayb qaadataan kana tashano horumarinta goboladaas waxaan mar labaad ugu baaqayaa bulshada Finland ee ka soo jeeda goboladaas walaalayaal jaaliyaddan waa jaaliyad madax bannaan una taagan horumarinta iyo nabadgelyada iyo maslaxadda iyo wax wada qaybsiga gobolada Jubbaland ama Jubba sida daraaddeed waxaan idinku baaqaynaa inaad nagala qayb qaadataan aniga iyo dhammaan xubnaha ay haddeertaan jaaliyaddan ka kooban tahay oo ah xubno ballaaran gudoomiye leh golihii leh dhammaantiin waxaan jecelnahay inaad nagala qayb qaadataan qof kasta oo Soomaaliya oo ka soo jeeda Jubbooyinka waxaanu leenahay walaal ku soo dhawow gacmo furan iyo wax wada qabsi iyo sidaynu ugu fakari lahayn horumarinta iyo wadajirka iyo maslaxadda goboladaas ay leeyihiin
waxaan mar labaad hadalkayga kusoo gunaanadaya kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan siyaasiyiinta odayaasha uqaasha guurtida gobolada Jubba ee isugu tagay caasimadda gobolka Gado ee Garbaharey oo aanu ka rajaynayno in ay halkaas ka soo baxaan wax u cutaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbooyinka waxaanu ka rajaynaynaa juhdigaas aad geliseen waan idinkaga mahad celinaynaa aad baan idinkaga mahad celinaynaa waan idinku taageeraynaa waan idinku garab taaganahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanu rajaynaynaa wax ummadda Soomaaliyeed quruxdeeda inay halkaa ka soo baxaan ee ku jahaysan gobolada Jubbooyinka iyo deegaamadooda nabadgelyo horumar mustaqbal iskaalmaysi iyo midnimo ayaa kaga baxaya salaamu calaykum waraxmatullaahi anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Jubbaland dalkan Finland waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u soo jeedin lahaa shirka midnimo 2 oo ka dhacaya magaalada Garbaharey oo caasimadda Gado ah shirkaas oo runtii aad iyo aad loo hadalhayay uuna daba socdo shir horey u dhacay oo midnimo koow ahaa waxaan bulshada reer Jubbaland khaasatan kuwooda ku sugan Gado aan dhammaantood yar iyo weyn ciroole iyo caruurba aqoonyahan iyo waayo arag iyo culimaaddin iyo dumarba aan jaaliyad ahaan Finland u soo jeedinaynaa inay taageero aan kala har lahayn u fidiyaan walaalahood isugu jira kuwa ka yimid waddanka banaankiisa iyo gudaha waddanka meelo kala duwan shirkan macnihiisa wuxuu ahaa shir nabadayn oo lagu nabadaynayo bulshada reer Jubbaland khaasatan kuwada reer Gado waana dadka walaalaha ahaa oo muddo aad u dheer runtii kala baahay in afkaartooda iyo aragtidooda iyo walaaltinimadooda si dhab ah loo muujiyo macnaha ugu weyn shirkaas ahaa waxa markaa macnaha xiga oo ahaan lahaa mar haddii dadkii walaalaha ahaa ay gacanta isqabsadaan in ummadda la degan gobolka iyo guud ahaan Jubbaland oo dhan in markaas ay yani wada shaqayn iskaashi ah yeeshaan maadaama intaas oo dhan hadda ay aad u hooseyso marka waxaa saldhig u ah intaas oo horumar inay dhacaan waxa weeye shirkan walaalaha bulshada Jubbaland khaasatan gobolka Gado inay mowqif adag oo walaaltinimo ah oo hagrasho la'aan ay ku jirto jacayl ku jiro inay isugu yimaadaan hal codna yeeshaan maadaama siyaasiyiintoodu iyo culimaaddoodu iyo ugaasiyadoodu ay aad u badan yihiin door aad u weyn ay ku leeyihiin siyaasadda dalka iyo hoggaankiisaba muddo aad u dheerna ilaa ay maantay ay ku lahaayeen marka waxa heshiiskoodu iyo wanaagoodu iyo inuu gobolkaasi Jubbaland Gado khaasatan uu noqdo dhul barwaaqo ah waxay dan ugu jirtaa cid kasta oo Soomaali ah oo ku sugan dalka Soomaaliya waayo waxay dan ugu jirtaa ciddii doonaysa gobolkaas inay wax ku yeelato hadday tahay dhaqaale hadday tahay degaan hadday tahay isdhexgal bulsheed waxa uu helayaa meel u nabad ah oo waxa uu markaa maslaxa u ah ama horumar u ah naftiisa inuu ka faa'iido marka waxaan bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta joogaan kuwa Jubbaland u dhashay oo dhan iyo kuwan u dhalanba gabi ahaan Soomaaliya meel kasta ay Soomaalidu joogto kuwa dibadda jooga kuwa dalka jooga waxaan jaaliyad ahaan Jubbaland Finland aanu ka codsan lahayn inay taageero iyo duco intaba ay u fidiyaan walaalahooda waayo cid kasta oo Soomaali ah oo walaalo ah oo si hoose iyagu u heshiiya waxay dan iyo barwaaqaba u tahay
cidda jaarkeeda oo markay ugu yar tahay shartooda iyo amnigooda ay ka nabadgelayaan markay ugu weyn tahayna nin walbaba uu ku yeelan karo hanti iyo dhaqaale iyo maxay ahayd iyo degaan intaba ku yeelan karo waxa markaa haddii ay sidaan ku socoto wax qabad la'aanta ay kalifaysaa in gobolkaas waxyaabo badan uu ka qado marka khaasatan bulshada Jubbaland ee ku dhaqan Gedo waxaan aad ugu soo jeedin lahaa in fursadan aysan seegin oo waxaani soo ku soo noqdo tiraynta dad leeg la isku helo aad bay u adag tahay inay maanta waxba la kala harin haddaan u gudbo walaalaha kale oo iyaguna Jubbaland u dhashay khaasatan gobolka Gedo arrinkooda baryahan aan maqlaynay oo shirar dhowr ah ka waday magaalada Doolow oo ahaa maamulintii ama maamulayaashii ka soo kicitimay magaalada Kismaayo waxaan jaalid ahaan isla garanay inaan baaq u dirno macnihiisu yahay maanta cid la jujuubi karo ama la khasbi karo ma jiro ilmaha yarka ah lama khasbi karo maanta iska dad weyn oo garaadkoodii iyo caqligoodii inta badan yahay waxaan walaalahaas si gaar ah iyo si guud ahaanba aan uga codsan lahayn jaalid ahaan inay walaalahood wixii afkaar ay kaga duwan yihiin iyagu ay si wanaagsan oo bisareexa ah ay ula niqaashaan gobonnimo iyo geesinimona ay u sameeyaan u tanaasulaan wixii looga bato waayo kaliga maslaxad ku gaari maysid nin kasta oo maantay Soomaaliya meel kasta u dhashayna wuxuu dadku yahay oo shakhsinimadiisu ammaan mudan tahay marka ummadda uu ka dhashay uu wanaag ka haysto marka waxaan u soo jeedin lahaa dadka mas'uuliyiinta ah ee ku sugnaa magaalada Doolow khaasatan kuwa gobolka Gedo u dhashay inay u naxariistaan maatada hooyada iyo caruurta aan miciin haysan noloshu aad ugu adag tahay inay u turaan aysan fiirin waxa shakhsiyeed iyaga uu ku eg taasoo runtii ceeb iyo waxtar la'aan intaba kala kulmi karaan waayo nin dadkiisa daryeela ayaa tu kalena ku dari kara ugaaska iyo mas'uuliyiinta kale ee ku sugnaa magaalada Doolow waxaan oran lahaa si xilkasnimo ah loo xisaabtamo la isku noqdo maanta waxa gobonnimo ah adoo ku dhinta adoo u naxariistay qofaad maanta codkiisa iyo mas'uuliyadiisa haysid waxaan rajayn lahaa ummadda Gedo u dhashay in loo daayo hawshooda iyo wax garadkoodaba inay go'aan ka gaaraan masiirka iyagu ay leeyihiin khaasatan dadkii waxaan amaanayaa fikradii aadka la rabay darbi in looga rido diiday ee Doolow ku sugnaa mas'uuliyiintaas baan aad u amaanayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waxaan ka rajaynaynaa in intii cadow ummad ku ah cid kasta oo nabadeeda iyo maslaxadeeda hoose ka shiraysa hadday tahay gobolada dhexe hadday tahay meel kasta oo Soomaaliya kaga sugan tahay oo maxay ahayd Soomaali ay ku shirayso maslaxadoodana ka shirayaan cidna aysan wax ku yeelayn waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu najax siiyo inuu ilaahay kii lugta raba inuu gooyo uu ilaahay ka qabto waayo ruux yani ka turjumi kara ummadda ma aha marka waxaan mar kale bogaadinayaa walaalaha xaaladda adag aan ognahay ee Garbaharey ku shiraya inaysan niyad jabin shirkooduna socdo inta alla intay wadi karaan ay wadaan anaguna heel iyo hooba halkaan aanu ka taageersanahay ururka Jubbaland ama jaalida Jubbaland ee ku sugan Finland waxay 100% habeen iyo maalin u taagan tahay wax qabad muuqda iyo mid aan muuqanba intaba inaan muujino haddii Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale sida gudoomiyihii uu yiri aanu jaaliyada ku soo dhaweynaysaa qof kasta oo u dhashay maxay ahayd gobolada Jubbaland ama u dhalan laakiin ummadiisu ay degto in wax alla wixii uu kala qayb qaadan karo jaaliyadan uu kala qayb qaato
waana soo dhaweynaynaa si kal iyo laab baan u soo dhaweynaynaa hana la ogaado jaaliyadani waxay matashaa cid kasta oo maslaxada cid kasta oo degta gobolkaas ama goboladaas Jubbaland isku yiraahdo ayay matashaa waana insha Allah ta'ala waxaan ka shaqeynayno in cid kastaba ay maxay ahayd maslaxadeeda ay gaarto baanu ka shaqeynaynaa waxyaabo badan inaanu qabanaan rajaynayna hadii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.